asalaamu calaykum asxaabta. Dagaal in Maraykanka iyo Iiraan mar kale aysan ka baaqsanaynin ayaa hadda cad. Madaxweyne Trump ayaa goordhow wuxuu bartiisa Truth Socialka uu ku soo qoray in dowladda Maraykanku ay gacanta ku dhigtay markab kuwa xamuulka ah oo dowladda Iiraan ay leedahay. Trump maantadii hore waa kii hanjabaadda soo qoray isla markaana yidhi wafdi uu madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaya ayaan Islaamabad u diray, laakiin Iiraan waa ay beeniso waxay tiri Maraykanka maba la aamini karo, welina ma aanan go'aansanba inaan wafdi u dirno Islaamabad Pakistan maxaa yeelay Maraykanku waa inuu qaadaa go'doominta uu ku hayo Iiraan oo ciidamadiisa uu ka qaataa marinka Hormuz. Shalayna waa tii Hormuz mar kale Iiraan dib u xirtay. Marka Trump qoraalkan waxa uu ku leeyahay ciidamada go'doominta ku haya Iiraan ee badda ee Maraykanka ee jooga xeebaha Cumaan waxay gacanta ku dhigeen markab calanka Iiraan sita oo xamuul ah. Markabkan 900 oo fiit ayuu dhan yahay, isla markaana waxa uu la eg yahay markabka diyaaradaha dagaalka xambaara oo kale. Waxa uu sheegay in ciidamada go'doominta ku haya in marinkaasi gaar ahaan markabka ciidamada dagaalka oo gantaalada la hago ay saaran yihiin oo USS Springs la yiraahdo in uu degniino siiyey markabkan, isla markaana markabkan uu diiday inuu degniinahaasi u hoggaansamo. Markaasi kadibna waxa uu yidhi xabad ayay ku fureen, qaybta uu ka saaran yahay matoorka ayaana god weyn ay ka duleeliyeen oo gantaal ayay la heleen. Markaasi kadib ciidamadu gacanta ayay ku dhigeen markabkanna waxa uu ka mid yahay yidhi maraakiibta Iiraan oo wasaaradda maaliyadda ee Maraykankaba ay raadinayso in muddo sanado ah howlo sharci darro ah waday. Kolley markab xamuul haddii la yidhi waa maraakiibta shidaalka qaada. Maraykanku muddo toddobaada waa kuwii go'doominta ku hayay Iiraan oo dekadaheeda aan la geli karin isla markaana aan laga soo bixi karin. Marka marinka Hormuz dhinaca Xumaan Maraykanka ayaa jooga oo go'doomin ku haya, dhinacii kale oo maraakiibta wadadii yareed ay marayna Hormuzna waxaa gacanta ku haya Iiraan oo iyaduna diidaysa inay wax ka soo baxaan amaba ay wax galaan. Sidaas darteed meesha waa la is hortaagan yahay. Marka Trump wuxuu leeyahay markabkan hadda gacanteena ayuu ku jiraa, isla markaana waxyaabaha saaran ayaan baareena. sidaas ayuu soo qoray. Iiraan kulley xilli saqdhaxa habeen ayaa la sii dhaafay. Warar waxay sheegayaan Iiraan inay beeninayso arrintaasi oo ay leedahay waxba kama jiraan. Markabkaasi xabada ayay ku soo rideen, laakiin gacanta ma aysan ku dhigin. Laakiin war cad lagama hayo. Trumpna sidaas ayuu leeyahay. Ciidamada SETCOM oo iyagu howlgalkaasi hogaaminaya go'doominta Maraykanku uu ku haya Iiraanna arrintan weli ma aysan ka hadlin. Marka sida muuqata hadda dagaal laga baqsamayo 2 maalmood ayaa ka harsan xabad joojintii. Sida muuqatana Iiraan diyaar uma ahan inay wafdi u dirto magaalada Islaamabad ee wadanka Pakistan. Madaxweynaha Iiraan ayaa wuxuu leeyahay wuxuu la hadlay ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Shahbaz Sharif, waxaana uu sheegay in Maraykanka aysan lahayn meel loogu hagaago oo sidii jirjiroolihii ay isbedbedelayaan saacad been ay sheegayaan, wada xaajood aan jirin ay sheegayaan, waxyaabo aan lagu heshiinin leeyihiin waa lagu heshiiyey. Marka waxa uu sheegay in Maraykanka ay yeeshaan wado loogu soo hagaago, markaasi kadib wada xaajoodka halkiisa laga sii ambaqaadi karo. Marka sida muuqata weli waa la is hortaagan yahay. xabad joojintii 2 maalmood ayaa ka harsan. wadan waliba wuxuu leeyahay qoriga xabaddu waa inoo raacsan tahay, riishadana waan haynaa. Marka xaaladdu halkay ku dambayso waan arki doonaa. waxaana hay'adda lacagta adduunka ee IMF hadda ay ka digaysaa in dhaqaale burbur caalamka uu ka dhici karo dagaalkan haddii ugu yaraan bil kale uu sii socdo. marinka Hormuzna hadda maadaama 50 maalmood uu xiran yahay, haddii uu ku darsado ugu yaraan 20 maalmood oo kale 60 maalmood ay noqoto in wadanka ama guud ahaanba caalamka dhaqaale burbur uu ka dhici karo.